Godadka madow ee maqan ee caalamka ayaa laga yaabaa inay ku yaaliin tobaneeyo sano. Irbixiyeyaashu waxay ku fikirayeen in godadka madow ay u kala baxaan 3 qaybood oo ballaaran. Haddii aad jeceshahay warbixinta noocaan ah, fadlan guji badhanka subscribe si aad u hesho warbixino badan. Waad ku mahadsan tahay dhegaysiga. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Waxaa jira godad madow oo xidigle ah, kuwaas oo u dhexeeya 5 ilaa 5 eber jeer tirada cadceedeena. Dabadeed, waxaa jira godad madow oo aad u sarreeya SMBes, kuwaas oo malaayiin ilaa balaayiin jeer ka weyn qoraxda. Ugu dambayntii, waxaa jira godad madow oo dhexdhexaad ah IMBes, oo leh tiro badan oo ku dhacaya meel u dhaxaysa. Halka saynisyahanadu ay arkeen godad madow oo badan oo xidigle ah iyo SMBes, caddaynta IMBes aad ayay u adag tahay in la helo. Taasi waxay keentay dhibaato. IMByada waxaa loo malaynayaa inay yihiin buundada ku-meelgaadhka ah ee u dhaxaysa godadka madow ee xidigaha iyo SMByada inta ay korayaan, isku xidhka maqan ee kobcinta godka madow. Daraasado taxane ah oo cusub, koox caalami ah oo ay hogaaminayaan cilmi baarayaal ka socda jaamacadda Vanderbilt ee Lunar Labs Initiative (LI) ayaa ku dhawaaqay in laga yaabo in ay heleen caddaynta walxahan qarsoon. Mid ka mid ah waraaqaha, koox ay hogaaminayaan irbixiyeenada Crystal Ruiz-Rotha iyo Angeli Yolkier ayaa qeexaya sida cilmi baarayaashu ay dib u falanqeeyeen xogta laser interferometer gravitational wave observatory LIGO iyo iskaashiga Virgo si ay u raadiyaan calaamadaha suurtagalka ah ee isku dhafka IMB. Natiijooyinku waxay muujinayaan in goobjoogayaashani ay diiwaan geliyeen dhacdooyinka mawjadaha dhufistiidadka ee u dhigma isku darka u dhexeeya godadka madow, kuwaas oo ahaa 1 eber eber ilaa 3 eber eber mases qoraxda. Tani waxay ka dhigaysaa dhacdooyinkan shilalka godad madow ee ugu weyn ee ay diiwaan geliyaan irbixiyeyaashu, waxayna ku meeleeyaan xadka ay filayaan IMByada fudud. Godadka madow waa fossils cosmi ugu dambeeya, ayuu yidhi xidigiye iyo qoraa sare Karanjani. Tirada godad madow ee lagu soo waramay falanqayntan cusub ayaa weli ah mid aad loo qiyaasi karo marka la eego cilmiga xidigiska. Dadkan cusub ee godad madow ayaa daaqad aan hore loo arag u furaya xidigihii ugu horeeyey ee iftiimiyey koonkeena. Cilmi baadhisyo la xidhiidha, saynisyahanadu waxay muujiyeen sida soo socota ee howlgalka laser interferometer SPA ee antenna LISA, kaas oo la qorsheeyey in la bilaabo dabayaaqadii 2 eber 3 eber meeyadii, uu gacan ka geysan karo xaqiijinta natiijooyinkan. Halka qalabka waxbaadha sida LIGO iyo Virgo ay qabsan karaan marxaladaha ugu dambeeya ee isku dhaca godka madow, LISA waxay awood u yeelan doontaa inay la socoto iyaga sannado ka hor inta aysan isku darsamin marka ay isu soo dhowaadaan midba midka kale, iyaga oo dhalinaya qulqulo wakhti meel ah. Wakhtigan fidinta waxay u oggolaan doontaa irbixiyeyaashu inay wax badan ka bartaan asal ahaan godad madow, horumarkooda, iyo waxa ku dhici doona. Waxaan rajaynaynaa in cilmi baaristan ay xoojiso kiiska godadka madow ee dhexdhexaadka ah, oo ah isha ugu xiisaha badan ee shabakadaha mawjadaha cufistiidad ee Earth ilaa meel bannaan, ayuu yiri Ruiz-Rotha. Baaritaan kasta oo cusub waxay noo keentaa inaan ku sii dhowaanno fahamka asalka godadka madow iyo sababta ay ugu dhacaan tiradan dahsoon. Iyadoo horey loo eegayo, kooxdu waxay qorshaynaysaa inay sahamiso sida IMB loogu arki karo iyadoo la adeegsanayo indha-indhaynta hirarka culayska ee dayaxa. NASA waxa ay sahminaysaa suurtagalnimada in lagu dhiso goob indha-indhayn oo kale ah dayaxa, taasoo qayb ka ah ujeedooyinka fog ee barnaamijka Artemis. Qorshahani waxa uu jiray ilaa xilligii Apollo, waxaana uu ku dhisi doonaa tijaabada dayaxa dusha sare ee grafimeter ee ay ka tageen irbixiyeenadii Apollo 17. Tani waa waqti xiiso leh taariikhda, ma aha oo kaliya in la barto godad madow, laakiin in laysu keeno xuduudaha sayniska iyo waaga cusub ee meel bannaan iyo sahaminta dayaxa, ayay tiri Jani. Waxaan haysanaa fursad naadir ah oo aan ku tababarno jiilka soo socda ee ardayda daahfurkooda waxaa qaabayn doona, lagana samayn doonaa dayaxa.